warmurteedkii galabta laga soo saaray gabagabada gogashii wada tashiga qaran ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud horay u iclaamiyay ayaa waxaa looga hadlay dhowr qodob oo muhiim ah. qodobadaas oo ugu horeeyo qodobka ah doorashada. warmurteedkana waxaa lagu yiri gogashu waxa ay isla qaadatay in doorasho dadban nooc kasta oo ay tahay aan dib loogu laaban. marka halka ku ilow wax dadban sideedaba halka ku hilmaan. waxaa la sheegay in dalka la iska dabageynayo iyadoo sida la sheegay doorashada looga dayan doono Somaliland iyo Puntland. warmurteedkana waxaa lagu yiri iyadoo laga ambaqaadayo khibradaha dimuqraadiyiinta iyo doorashooyinka ee maamulada Puntland iyo Somaliland. gogashu waxay isla qaadatay in si degdeg ah loo gudagalo doorashooyinka dawladaha hoose iyo golaha deegaanka si geedi socodka doorashooyinka dalku uu isu gaaro. waa sida warmurteedka lagu qoray. halka waxa ku cad laba arrimood. kow, halka waxa ku cad doorashada la qabanayo in ay halka kaaga hartay hebel baa shaati la eg tolanaya. doorashada la qabanayo waa la cadeeyay. waa doorashadii ka dhacday gobolada waqooyi sida Puntland iyo Somaliland. way cadahay. waxaad rabtaa haddii aad rabto inaad ogaato doorashada la qaban doono soo baar doorashadii Hargeysa ka dhacday caynkeedii oo kale ayaa la qabanaya. haddaba qof doorashadaas soo dhaweeyay oo u hambalyeeyay deetana waxa uu ku diido lama oga koonfurta ka dhacaysa. waxa kaloo meesha ku jira Puntland iyo Somaliland golaha deegaanka doorashooyinkoodii hore inay sidoodii u sugan yihiin kuwan kale in la qabanayo deegaanada kale oo dhan in laga qaban doono ayaa hadalka ku jira oo aysan Somaliland iyo Puntland ka qayb ahayn doorashooyinka golaha deegaanka ee hadda la qabanayo. sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyay goobtii lagu soo gunaanaday gogasha ayaa mar uu qodobkan isdul taagay doorashada ah waxa uu sheegay in aan aysan suurtagal ahayn marnaba meeshii la joogay in la sii joogo laakiin loo baahan yahay in horey loo socdo. qodobka oo marar badan ku celcelishay khudbadihiisa. qodobka labaad oo warmurteedka looga hadlay dawladuna aad mooday inay ka muujisay tanaasulaad waa dhamaystirka dastuurka. waxaana lagu yiri warmurteedka dastuurku waa dokumenti nool oo mar walba wax laga bedeli karo. haddaba afarta qodob ee dastuurka oo dhamaystirkiisu baarlamaanka la mariyay iyo qodobada kale oo dhiman siyaasiyiinta Soomaaliyeed wixii aragti ay ka qabaan waa ay soo gudbi karaan iyadoo loo marayo habka dastuurku u sameeyay habraaca dastuurku u sameeyay dhamaystirkiisa iyadoo loo marayo habraaca dastuurku uu tilmaamayo يعني habraaca wax looga bedelayo waxa tilmaamay dastuurka laftigiisa. meesha waxa ku cad in dawladdu tanaasulaad ka sameysay doodihii dastuurka. afartii cutub oo dooduhu ka taagnaayeen ay dawladdu sheegtay in la dhageysanayo cidii wax ka qabta. dhanka kale madaxweynaha oo meesha hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay inagoo 10 qodob isku waafaqsan hal qodob ama hal shay inaan ku kala tagno ama ku dhagnaano sax ma aha. wuxuu kaloo meesha ka sheegay madaxweynuhu warmurteedkan iyo go'aanadan ay gogashu soo saartay in loo geynayo cidii aan qayb ka ahayn si loo weydiiyo inay wax ku darayaan oo aragtidooda loo dhageysto. dhanka kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in gogashii hadda furneed la soo laabay laakiin wada hadalku mar walba uu furan yahay. madaxweynuhu sidoo kale waxa uu sheegay in qof Soomaali ah uu si albaabkiisu ka xirnayn oo uu u furan yahay cid kastoo Soomaali ah oo dood qabta. qodobka saddexaad oo warmurteedku darana waa digniin loo dirayo shisheeyaha ama beesha caalamka qoliyaha loo yaqaano. warmurteedkana waxa lagu yiri geedi socodka wada hadallada lagu dhamaystirayo ajendayaasha qaran waa inay noqdaan kuwa Soomaaliyeed oo Soomaalidu leedahay dadkeena iyo dalkeenana u horseedaya deganaansho nabad iyo horumar waara kana maran faragelin shisheeye. ugu dambeys maamulada qaar iyadoo loo digayo ayaa waxa lagu yiri kala saara gargaarka bini'aadanimada iyo sidoo kale deeqaha ama shacabka Soomaaliyeed adeegyada loogu talagalay iyo siyaasadda kala saara. ugu dambeys warmurteedka iyadoo la bogaadiyay halganka lagu la jiro khawaarijta iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo maxaawisleyda halgankooda ayaa qaybta ugu dambaysa warmurteedka waxa loogu digay maamulada qaar siyaasadeynaya arrimaha gargaarka iyo adeegyada bulshada. waxaa la sheegay inay kala saaraan siyaasadda iyo adeegyada bulshada. dabcan waa dareemi kartaa cidda loo door xulayo. sidoo kale culimada iyo ururada bulshada rayidka iyo cid kastoo indheergarda waxaa lagu baaqay inay ka shaqeeyaan isu soo dhaweynta siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyay. waxaana warmurteedka lagu yiri gogashu waxa ay ku baaqday
in kala ra'yi duwanaanshaha siyaasadeed aanay saameyn xun ku yeelan gargaarka bani'aadanimada iyo mashaariicda horumarineed ee deegaanada bulshada Soomaaliyeed. Gogashu waxa ay ugu baaqday culimada diinka Soomaaliyeed, madax dhaqameedyada, ururada bulshada rayidka, waxgaradka kale ee Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan wacyigelinta, isu soo dhaweynta iyo xal u raadinta arrimaha siyaasadeed ee lagu kala ra'yi duwan yahay. Haddaba warmurteedkani ma yahay mid la sugayay, ma yahay mid wax soo kordhinaya? Aragtidaadu waa inoo muhiim. Xagga hoose ee faalada nagu reeb. Wassalaamu calaykum. Jumco wanaagsan. warmurteedkii galabta laga soo saaray gabagabada gogashii wadatashiga qaran ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud horay u iclaamiyay ayaa waxaa looga hadlay dhowr qodob oo muhiim ah. Qodobadaas oo ugu horeeyo qodobka ah doorashada. Warmurteedkana waxaa lagu yiri gogashu waxa ay isla qaadatay in doorasho dadban nooc kasta oo ay tahay aan dib loogu laaban. Marka halka ku ilow wax dadban sideedaba halka ku hilmaan. waxaa la sheegay in dalka la iska dabageynayo iyadoo sida la sheegay doorashada looga dayan doono Somaliland iyo Puntland. Warmurteedkana waxaa lagu yiri iyadoo laga ambaqaadayo khibradaha dimuqraadiyiinta iyo doorashooyinka ee maamulada Puntland iyo Somaliland. Gogashu waxay isla qaadatay in si degdeg ah loo gudagalo doorashooyinka dowladaha hoose iyo golaha deegaanka si geedi socodka doorashooyinka dalku uu isu gaaro. Waa sida warmurteedka lagu qoray. Halka waxaa ku cad laba arrimood. Kow, halka waxaa ku cad doorashada la qabanayo in ay halka kaaga hartay hebel baa shaati la eg tolanaya. Doorashada la qabanayo waa la cadeeyay. Waa doorashadii ka dhacday gobolada waqooyi sida Puntland iyo Somaliland. Way caddahay. waxaad rabtaa haddii aad rabto inaad ogaato doorashada la qaban doono soo baar doorashadii Hargeysa ka dhacday caynkeedii oo kale ayaa la qabanaya. haddaba qof doorashadaas soo dhaweeyay oo u hambalyeeyay deetana waxa uu ku diido lama oga koonfurta ka dhacaysa. waxa kaloo meesha ku jira Puntland iyo Somaliland golaha deegaanka doorashooyinkoodii hore inay sidoodii u sugan yihiin kuwan kale in la qabanayo deegaanada kale oo dhan in laga qaban doono ayaa hadalka ku jira oo aysan Somaliland iyo Puntland ka qayb ahayn doorashooyinka golaha deegaanka ee hadda la qabanayo. sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyay goobtii lagu soo gunaanada iyo gogasha ayaa mar uu qodobkan isdul taagay doorashada ah waxa uu sheegay in aan aysan suurtagal ahayn marnaba meeshii la joogay in la sii joogo laakiin loo baahan yahay in horey loo socdo. qodobka oo marar badan ku celcelisay khudbadihiisa. qodobka labaad oo warmurteedka looga hadlay dawladuna aad mooday inay ka muujisay tanaasulaad waa dhamaystirka dastuurka. waxaana lagu yiri warmurteedka dastuurku waa dokumenti nool oo mar walba wax laga bedeli karo. haddaba afarta qodob ee dastuurka oo dhamaystirkiisu baarlamaanka la mariyay iyo qodobada kale oo dhiman siyaasiyiinta Soomaaliyeed wixii aragti ay ka qabaan waa ay soo gudbi karaan iyadoo loo marayo habka dastuurku u sameeyay habraaca dastuurku u sameeyay dhamaystirkiisa iyadoo loo marayo habraaca dastuurku uu tilmaamayo يعني habraaca wax looga bedelayo waxa tilmaamay dastuurka laftigiisa. meesha waxa ku cad in dawladdu tanaasulaad ka sameysay doodihii dastuurka afartii cutub oo dooduhu ka taagnaayeen ay dawladdu sheegtay in la dhageysanayo cidii wax ka qabta. dhanka kale madaxweynaha oo meesha hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay inagoo 10 qodob isku waafaqsan hal qodob ama hal shay inaan ku kala tagno ama ku dhagnaano sax ma aha. wuxuu kaloo meesha ka sheegay madaxweynuhu warmurteedkan iyo go'aanadan ay gogashu soo saartay in loo geynayo cidii aan qayb ka ahayn si loo weydiiyo inay wax ku darayaan oo aragtidooda loo dhageysto. dhanka kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in gogashii hadda furneed la soo laabay laakiin wada hadalku mar walba uu furan yahay. madaxweynuhu sidoo kale waxa uu sheegay in qof Soomaali ah uu si albaabkiisu ka xirnayn oo uu u furan yahay cid kasto Soomaali ah oo dood qabta. qodobka saddexaad oo warmurteedku daarana waa digniin loo dirayo shisheeyaha ama beesha caalamka qoliyaha loo yaqaano. warmurteedkana waxa lagu yiri geedi socodka wada hadallada lagu dhamaystirayo ajendayaasha qaran waa inay noqdaan kuwa Soomaaliyeed oo Soomaalidu leedahay dadkeena iyo dalkeenana u horseedaya deganaansho nabad iyo horumar waara kana maran faragelin shisheeye. ugu dambeys maamulada qaar iyadoo loo digayo ayaa waxa lagu yiri kala saara gargaarka bini'aadanimada iyo sidoo kale deeqaha ama shacabka Soomaaliyeed adeegyada loogu talagalay iyo siyaasadda kala saara.
ugu dambeys warmurteedka iyadoo la bogaadiyey halganka lagula jiro khawaarijta iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo macawisleyda halgankooda ayaa qaybta ugu dambaysa warmurteedka waxaa loogu digay maamulada qaar siyaasadeynaya arrimaha gargaarka iyo adeegyada bulshada. waxaa la sheegay inay kala saaraan siyaasadda iyo adeegyada bulshada. dabcan waa dareemi kartaa cidda loo door xulayo. sidoo kale culimada iyo ururada bulshada rayidka iyo cid kastoo dheergarada waxaa lagu baaqay inay ka shaqeeyaan isu soo dhaweynta siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyay. waxaana warmurteedka lagu yiri gogoshu waxa ay ku baaqday in kala ra'yi duwanaanshaha siyaasadeed aanay saameyn xun ku yeelan gargaarka bani'aadanimada iyo mashaariicda horumarineed ee deegaanada bulshada Soomaaliyeed. gogoshu waxa ay ugu baaqday culimada diinka Soomaaliyeed, madax dhaqameedyada, ururada bulshada rayidka, waxgaradka kale ee Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan wacyigelinta, isu soo dhaweynta iyo xal u raadinta arrimaha siyaasadeed ee lagu kala ra'yi duwan yahay. haddaba warmurteedkani ma yahay mid la sugayay, ma yahay mid wax soo kordhinaya? aragtidaadu waa inoo muhiim. xagga hoose ee faalada nagu reeb. Wassalaamu calaykum, jumco wanaagsan.